Assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada janaalkeena walaalka show. Maanta waxa aan rabaa inaan idin la wadaago qaybta labaad ee filimka boqolkiiba 3 ama 3%. Fadlan taxadar oo si fiican u daawo. Kadib wareegga saddexaad dhammaan ka qaybgalayaasha waxaa looga wacay xagga kafeteriga ama maqaaxida. Waxa ay wax ku iibsadeen kooniskii ama lacagtii birta ahayd ee ay ku guuleysteen si ay naftooda ugu helaan cabitaan ay cabaan. maadaama ay noloshooda oo dhan ay ku noolaayeen nolol faqri ah cabitaanada ayaa iyaga u raaxa aan la soo koobi karin qof kastana waxa uu ku raaxaystay jawiga degan marka laga reebo Juwayna maadaama Juwayna aysan wali wax ku iibsan koonkeedii Juwayna ka hor inta aysan ka soo qayb galin barnaamijkan waxay ahaan jirtay agoon wadada ku tuugsata waxay xadi jirtay oo ay dadka ka dhici jirtay nolol maalmeedkeeda maalin maalmaha kamid ah ayaa waxa qabtay niman ay lacag ka soo xaday waa ay garaaceen waxayna ka qaateen dhammaan wixii ay keydsan jirtay Juwayna wali waxa ay si xasuusataa maalintaas waxayna ku adkaysatay inaysan waxba ku iibsan koonkeedii dhanka kale Isikiyo waa uu kacsan yahay sababtoo ah cadaadiska sii kordhaya ee uga imaanaya Alin xubin golaha lagu kalsoon yahay oo magaceedu uu yahay Naayir ayaa ka codsatay inuu taxadaro waxay ogtahay in mid kamid ah golaha ay u dirtay Alin si ay Isikiyo uga saarto jagada dhinaca kale ka qaybgalayaasha waxaa loogu yeeray hawsha xigta midana sidoo kale waxay u shaqeyn doonaan koox ahaan halkaas oo ay tahay inay si wada jir ugu socdaan tunnel ama dhuun ama tuba dheer oo mugdi ah 5 daqiiqo gudahood Rafael waxa uu qabaa inaysan macquul ahayn arintan dhaxmaritaanka dhuunta ujeedada la'aan shakigiisa waxa la cadeeyay inuu sax yahay markii ay ogaadeen in tunnelka uu ka buuxo gas ama hawo taas oo ka dhigaysa inay soo xasuustaan waqtigoodii ugu adkaa ee ay soo mareen noloshoodii waxayna kicinaysaa cabsidooda ugu weyn Michelle ma joojin karto inay ka fikirto maahane sidii ay u dishay ama ay u qiyaanaysay saaxiibteed Bruna Fernando waxa uu ka baqayaa inuu ku guul dareysto halka Rafael uu maqlayo cod hoose oo ku leh inuu ka tanaasulo barnaamijkan sababtoo ah waa qiyaanoole dadka oo dhan ay nacib yihiin Juwayna ayaa tan ugu dhibka badan taas oo la macno ah inay sameysay wax ay ka qoomamaysay waxay go'aansatay inay sida ugu dhaqsiyaha badan tunnelka ama tubada uga baxdo si kastaba ahaatee ugu dambeyntii waxaa loo sheegay in qof kasta oo kooxda kamid ah ay tahay inuu meeshan soo gaaro si ay u guuleysato dhanka kale Ilin iyo Isikiyo ayaa falanqeynaya ama indheynaya ka qaybgalayaasha Isikiyo waxa uu sheegayaa in ujeedada ugu weyn ee arintani ay tahay in la hubiyo in tartamayaashu ay niyad ahaan u dhisan yihiin iyo inay ku noolaadaan qaybta offshore-ka Juwayna waxa ay ku soo noqotay kooxda inteeda kale mid ayayna banaanka ugu saartay mid kamid ah gabdhaha tartamayaasha oo lagu magacaabo Kaasiya ayaa ka baqday inay dhimato inta lagu jiro tijaabada barnaamijkan waana ay is adkeysay inaysan meesha ka bixin laakiin ugu dambeyntii Juwayna ayaa banaanka u jiiday waxay gaareen albaabka ilbiriqsi ka hor inta aanu dhammaan waqtiga sidaas ayayna uga gudbeen imtixaankii mid kamid ah howlwadeenadu waxa uu ku wargeliyay in saameynta gaasku ay sii jiri doonto muddo inta kadib ka qaybgalayaasha waxa loo diray qolkii jiifka si ay ugu nastaan qof kasta waa uu fiican yahay marka laga reebo Kaasiya oo wali gariiraysa gaaska awgiis Michelle iyo Fernando ayaa dibadda u soo baxay si ay jawi u qaataan Fernando waxa uu Michelle weydiiyay arrimo ku saabsan walwalkeeda sababtoo ah waa ay ku qarweysay intii lagu guda jiray tunnelka gudihiisa si ay uga fogaato mowduuca way dhunkatay maadaama ay arintaasi iyada qaas u tahay habeenkii Juwayna waxa ay ku riyootay maalintii ay sameysay qaladkii ugu weynaa ee nolosheeda waxay rabtay inay lacagteeda ka soo ceshato tuugadii qaadatay sidaas darteed waxay ku dhuumatay gurigoodii iyadoo cidna aanay arkayn lacagteedii ayay heshay markii ay rabtay inay baxdo ayaa waxa ay maqashay sawaxan waxaana ka baxsatay xabad taas oo si lama filaan ugu dhacday wiil uu dhalay hogaamiyihii kooxdaas maalintaas ayay ka qoomamaysay wax kasta oo nolosheeda ah waxay ogaatay in kooxda burcadaahi aysan u ogolaan doonin inay sii noolaato oo sida kaliya ay ku baxsan karto ay tahay inay aado qaybta offshore-ka laakiin wali ma aysan isdiiwaan gelin oo hawsheedu waxa ay bilaabatay maalintii xigtay ugu dambeyntiina waxay u tagtay farshaxan yaqaan si ay dhagaha gadaasheeda ugu dhajiso jibkii isdiiwaan gelinta oo feeg ah xitaa magaceeda Juwayna maahan magaceedii saxda ahaa hurdada markii ay ka soo naaxday waxay aragtay qof banaanka socda waa ayna ka daba gashay ilaa musqusha ma joojin karto inay ka fakarto maahan ilmihii ay dishay oo waxay u maleynaysaa inuu ku jiro mid kamid ah qolalka musqusha si lama filaan ayaa waxa soo weeraray Kaasiya oo wali ay ka muuqato saameynta gaaska iyadoo oo ku dhow inay disho Juwayna ayaa waxa ka celinaya Rafael wuxuu geeyay oo uu ku hubsaday qolkeeda kadibna wuxuu u soo laabtay Juwayna ayagoo sheekeysanaya waxa uu arkayaa goynta dhagteeda wuxuu ogaaday inay sidoo kale haysato diiwaan gelin feeg ah
ama been abuur ah. wuu uga mahad celiyay wixii ay u sameysay intii lagu guda jiray tunnelka ka hor inta aanu ku noqon sariirtiisa. dhinaca kale Ezekiel waxa uu arkay qof ku soo dhawaanaya xarunta. wuu dabagalay si uu ogaado qofku yahay. qofku waxa uu noqday ilmo yar oo la yiraahdo Agosto. si degdeg ah ayuu gudaha u soo galiyay, wuxuuna daleeday ama uu baabi'iyay dhammaanba muuqaaladii CCTV-gu ay qaaday. Ezekiel waxa uu keenay casho. qaybtani lama shaacin xiriirka ka dhaxeeya labadooda, laakiin Ezekiel waxa uu muuqdaa mid jecel oo daryeelaya Agosto. si lama filaan ah waxa albaabka u soo garaacday Alin. Ezekiel si degdeg ah ayuu ilmihii yara ugu qariyay gidaarka ama darbiga gadaashiisa. markii ay soo gashay waxay aragtay labada saxan ee meesha yaala, waxayna weydiisay inuu qof la joogay, laakiin Ezekiel si caqli gal ah ayuu uga leexday ka jawaabidda su'aashaas. waxay u sheegtay inuu isdejiyo ka hor inta aysan bixin. Ezekiel ugu dambeyntii waxa uu soo saaray Agosto baashaal, kadibna waa ay ismacasalaameeyeen. dhanka kale qolka jiifka, Michelle iyo Fernando waxa ay ka sheekeysanayaan noloshoodii haasaaweed ee markii ay gaaraan qaybta offshore-ka. laakiin arrintani Michelle uma wanaagsana, maadaama ujeedada ugu weyn ee ay u timid halkan ay tahay inay jaajuusto offshore-ka. qolka kale Juwayna waxay ugu mahad celinaysaa Rafael badbaadintii uu badbaadiyay nolosheeda. subaxda xigta, Juwayna waa qofka ugu horeeya ee toosa. bannaanka ayayna u soo baxday, waxayna aragtay ama ay ogaatay in marinkii ama iridii ay ka soo galeen shalay la xiray. durbaba waxa ay soo kicisay kuwii kale. Juwayna waxa ay heshay dhuun ama dalool furan. waxay ku qaylisay iyada oo weydiinaysa caawinaad, laakiin wax jawaab ma helin. Marco ayaa aad uga walwalsan, isagoo u malaynaya in la tijaabiyay. waxa uu isku dayay inuu si xoog ah albaabka u furto, balse uma suurto gelin. qolka dhexdiisa waxa uu ogaaday inay jiraan dhowr layris ama lakabyo. wuxuu kaloo arkay tirooyin lamaana ah ama baanari ah. Marco cambaar markii uu fakiray, isagoo oo ka fakaraya waayihiisii hore. Marco weligiis lama kulmin aabihiis, maadaama aabihiis barnaamijkan ka qayb qaatay oo uu sidaasi u tagay qaybta offshore-ka ka hor inta uusan dhalan. qof kasta oo qoyskiisa ka mid ah ayaa ka gudbay halkan, taas oo ka dhigaysa inuu rumaysnaado inay tahay sababta kaliya ee uu nool yahay inuu ka gudbo barnaamijkan. Marco inta uusan soo bixin ayuu naagtiisa oo Xaliimo ahayd uu siiyay warqad uu ugu talagalay cunugtiisa yar oo aan weli dhalan. hadda oo uu hor taagan yahay kormeeraha, waxa uu soo xasuustay halkudhigiisii ku caawin jiray inuu fakaro. wuxuu ugu yeeray qof walba marinka kadib markii uu helay furihii albaabka. dhinaca kale Ezekiel iyo wakiilka ayaa waxa ay wax walba ka daawanayaan CCTV-ga. waxay la dhacsan yihiin Marco fikirkiisa degdega ah, sababtoo ah kuwa kale waxa ay ku mashquuleen wax aan waxba qabanayn ama soo kordhinayn. Marco waxa uu daaha ka qaaday in nambarada binary-ga ah ee ku sawiran darbiga ama shaashadaha ay xiriir la leeyihiin lakabyada qolalka yaala. haddii ay isku aadiyaan lambarada shaashada ku qoran iyo lakabyada, waxa uu sheegay inay macquul tahay inuu albaabku furmo. Ezekiel iyo kooxdiisa ayaa la yaaban inuu Marco uu awooday inuu si fudud u ogaado. Marco waxa uu kala qaybiyay ka qaybgalayaasha kuwa tirooyinka xifdiya iyo kuwa lakabyada jiida. kooxdii koowaad waxa ay xifdiyeen tirooyinka, waxayna u yaaceen qolalka si ay kuwa kale ugu sheegaan. kooxda labaad waxa ay jiideen lakabyadii si waafaqsan tilmaamihii la siiyay. qorshuhu wuu shaqeeyay, laakiin halkii uu albaabku ka furmi lahaa, waxay heleen baakad ama kartoon cunto ah. ka qaybgalayaashu waxa ay ka doodeen cidda cunaysa baakadka ugu horeeya. Marco waxa uu ku adkaystay inay tahay isaga, sababtoo ah isaga ayaa la yimid fikradda, laakiin kuwa kale ayaa diiday taa beddelkeeda. waxay dejiyeen inay cuntada u qaybiyaan qaab alfaabeetig ah. kadib markii intii ugu horeysay ay cuntay qaybteeda, waxay sii wadeen inay shaqeeyaan kuwii kale. wax yar kadib waxa ay heleen baakado cunto ah. wakiilada qaar waxa ay soo jeediyeen inay guuleysteen, sababtoo ah qof kasta ay aastiim ahaan ayuu u shaqeeyay, mana jiraan wax khilaafsan oo dhacay. si kastaba ha ahaatee, Ezekiel kuma qanacsana. wuxuu ku adkaysanayaa inay dheereeyaan hawsha oo ay xoogaa bedelaan xeerarka. si lama filaana ka qaybgalayaasha waxaa ka go'day cuntadii. xitaa kadib markii ay isku dayeen dhowr jeer, waxa ay ogaadeen in xeerarkii hawshu isbedeleen, laakiin ma garanayaan wax ay sameeyaan. isla markiiba dhuuntii waxaa ka soo baxday cunto fara badan. qof kasta si farxad leh ayuu u soo qaatay intii uu rabo, laakiin Michelle ayaa joojisay. waxay ka dhaadhicisay in cuntada si tartiiba loo qaybiyo, sababtoo ah waxaa laga yaabaa inay ku xayirmaan meesha in muddo ah. qof kasta wuu ogolaaday marka laga reebo Marco, maadaama booskiisii hogaamineed lagala wareegay. waxa uu Rafael ku qanciyay inuu garab istaago, isaga oo ku dhawaaqay inay tahay inay heleen hab ay uga baxaan meeshani sida ugu macquulsan.
Rafaa'il wuu rumaysan yahay maadaama maamulka sare aan u soo diri lahayn cunto aad u badan haddii ay doonayaan inay qolalka ku sii jiraan muddo dheer. intaasi kadib waxa ay heleen albaab laga yaabo inuu furmo oo waxay ururiyeen nidaamyada ugu waaweyn. dhanka kale Aliin waxa ay soo gashay Ezekiel xafiiskiisa waxayna isku dayaysaa inay furto kombiyuutarkiisa laakiin waxaysan ogeyn in kor laga daawanayo. isagoo ka careysan faragelintan Ezekiel waxa uu kulan xagga fogaan aragga alla yeeshay xubnaha golaha wuxuuna ku eedeeyay nin lagu magacaabo Samiyu inuu isku dayay inuu waxyeeleeyo sumcadiisa. Samiyu waa kan doonaya inuu Ezekiel booska baneeyo waana qofka soo diray Aliin laakiin wuu inkiray eedaynta lagu soo rogay. dhinaca kale Marco iyo kooxdiisa si xoog leh ayay albaabka u fureen laakiin waxay ku dhamaadeen qol kale oo xiran. shaqo adag kadib gaajo iyo daal ayay dareemeen. Marco waxa uu ku dhawaaqay inuu yahay madaxa ama laga amar qaato hadda kadib. wuxuu bilaabay inuu raadiyo kaydka cuntada cidii isku dayda inay ka hor timaado wuxuu u sheegay inuu dili doono. Rafaa'il ma jeclaysan fikradan wuxuu raali geliyay qof kasta oo cuntadiisa laga qaatay wuxuuna u sheegay inuu Marco joojiyo naxariis darrada laakiin dhag jalaq uma siin. wuxuu isku dayay inuu argagax geliyo kuwa kale. Ezekiel wuu dhool cadeeyay isagoo ku qanacsan go'aankiisa inuu hawsha ku dheereeyo wuxuu ogaa in dareenkooda runta uu soo bixi doono kaliya marka ay la kulmaan xaalad nolol ama geeri u dhaxaysa. meel kale Aliin waxa ay kulan kula jirtaa Matthew wuxuuna ku canaantay taxadir la'aanteeda laakiin waxa ay ku adkeysanaysaa inay ku dhowdahay inay shaaca ka qaado arrinta Ezekiel. waxayna soo saartay fara ay ka heshay xafiiska Ezekiel oo ay hubto inuusan isagu lahayn. waxay rabtaa inay ogaato cidda kale ee qolka kula jirtay. dhanka kale Marco wuxuu sii wataa argagax gelinta kooxda kale. Juwayna waxay ogaatay inaysan sii noolaan doonin haddii ay halkan sii joogto. sidaas darteed waxay kor u raacday daloolkii yaraa ee cuntada uga imaanaysay inkastoo aysan suurtagal ahayn in la fuulo. intaasi kadib aakhirkii si uun ayay u gaartay dhamaadka waxay aragtay Ezekiel oo kor taagan. Ezekiel wuxuu tusay Juwayna muuqaalka CCTV-ga wuxuuna u sharaxay micnaha ka dambeeyay tijaabadan. waxa uu rabaa in tartamayaasha ay ogaadaan dabeecadda cadaalad darrada ee adduunka. dhinaca kale Michelle iyo kooxdeeda ayaa waxay xanibeen qolka si ay uga hortagaan kooxda Marco inay soo galaan. Marco waxa uu helay gabar qaybteedii cuntada ku qarsanaysa dharkeeda hoostiisa wuuna ka qaatay. wuxuu sidoo kale ku amray inay raali gelin ka bixiso taas oo ay ka cagajiiday. wuxuu ku dhiftay bir nolosheeda soo afjartay. Rafaa'il wuxuu isku dayay inuu caawiyo gabadha laakiin wuu naxay markuu ogaaday inaysan neefsanayn. waxa ka dhamaaday dulqaadkii wuxuuna weeraray Marco laakiin kooxdiisa ayaa ka celisay Marco. Rafaa'il wuu orday si uu caawinaad uga helo dhanka Michelle waxa uu ka baryayay inay ogolaato inuu soo galo laakiin Michelle kama yeelin. markii dambe dhegta ayuu wax ugu sheegay taas oo ka dhigaysa inay isla markiiba albaabka furto. kooxda burcadda ayaa timid ilbiriqsi kadib waxaana ay bilaabeen inay isku dayaan inay jabiyaan xayndaabka. dhinaca kale Ezekiel waxa uu sheegay Juwayna in qofka kaliya ee joojin kara arrintan ay tahay iyada haddii ay ogolaato inay hoos u degto oo ay bedesho habdhaqankooda ay albaabka ku furi doonaan. waxay dib ugu noqotay gudaha marinka hawada. kooxda Marco waxay isugu keeneen hal qol dadkii ay haysteen. Juwayna waxa ay weerartay ninkii ilaaliyaha u ahaa kooxda Marco iyadoo sii deysay kuwa kale si ay wadajir ugu weeraraan. isla markiiba waxa ay weerareen kooxda Marco waxayna u garaaceen si naxariis darro ugu dambeyn albaabadii qolka ayaa furmay. hareeraha qolka waxa ka buuxa oo daadsan meydad. Marco oo si xun u dhaawacmay ayaa isku dayay inuu banaanka u baxo ka hor inta uusan albaabku xirmin. markii uu gaaray dhamaadka albaabkii ayaa kala go'ay maadaama uu waqtigu dhamaaday. dibadda Fernando ayaa weydiiyay Michelle waxa uu dhegta ugu sheegay Rafaa'il laakiin waxay u sheegtay inuu ku kalsoonaado. kadib waxaan ogaanay arrinta Rafaa'il waxa uu la cabsanayay saaxiibkiis oo hadda 20 jirsaday oo loo diiwaan galiyay inuu ka qayb qaato barnaamijka sanadkan. Rafaa'il waxa uu ka qayb galay sanadkii hore laakiin kuma uusan guuleysan. wuxuuna hamuun u qabay fursad labaad. markaa saaxiibkii ayuu ka xaday qalabkii diiwaan gelinta. magaca dhabta ee Rafaa'il waa Tiago. saaxiibkiis oo aqoonsigiisa uu xaday waxa lagu magacaabi jiray Rafaa'il laakiin qaybta ugu naxdinta badan ayaa markii aan aragnay Rafaa'il oo u socda gabar xubin ka kooxdii lagu magacaabi jiray The Cows. tani waxay la micno tahay inuu sidoo kale qayb ka yahay ururka fallaagada ee ka shaqeynaya nidaamka ka soo horjeeda. fadlan subscribe noo saar si aad ula socoto qaybta xigta. sidoo kale si aad u hesho muuqaalo badan oo sidaan oo kale sidoo kale like iyo comment naga iloobin. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan.